بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنت wanaagsan akhar sharafta leh waa Said Cabdiraxmaan oo idin ku soo dhawaada barnaamijka maanta. Akhyaaray maanta waa barnaamijkan waxaan uga hadli doonaa sheekadan had iyo jeer Soomaalidu ay maaragtay ka sheekayso oo isla dhex marto ee ku saabsan ninkii la yiri boqor buu ahaa Yahuudiya oo dhulka Soomaalida xukumi jiray ninka oo la oran jiray bucur bacayr. يعني إن شاء الله تعالى بل كهل دونا وحين كوجناهي ينو كهل دونا دولا يجاهدو مركا سألوكتين نينكم وحال الشيعة إنه دولك الصوماليات جارهان قبل ذا وقوي وحكومة جري جارهان وحليل وحفلي جري مقالة كتلا دولا مقالة هرقيسة والرياضة أو برحلة أنت هنا المركا نينكم وقلين waxaa kaloo idiin sheegayaa waqtigii nebi muuse calayhi salaam oo laga joogo 3200 sano ka hor ayaa waxaa jiri jiray nin reer bani israa'iila oo ninkan isku soo magac dhawaayeen ninkaasi waa ninka qisadiisu way ku jirtaa maaragtay youtube channelkayga ninkaas waxaa la oran jiray baclam ibnu bucuura ayaa la oran jiray magaciisa ninkani maxaa waan dul marhayaa taariikhdiisa go'aan qofka doonaya video taariikhdiisa buuxda halkaas ku jirta quraanka waxa lagu sheegay suurada 7 ee quraanka suuratul al-a'raaf aayada 157 ninkani wuxuu ahaa nin muslim oo culimada reer Israa'iil ka tirsan oo yaqaanay aayad kamid aayadaha waaweyn Ilaahay subhanahu wa ta'ala culimada islaamka waxa ku sheegay ninkan wuxuu yaqaanay magac kamid magacyada sirta Ilaahay lagu bariyo وقف إلهي كبر سبحانه وتعالى وسنسوع المريضاس مقعاس النبي انتني كلام نقانو نبينا صلى الله عليه وسلم دردار النوبات الوحى بيهي قولك ننكر يوحى لياديد وجعلا درتيد أيا وكفد نوبي مركد دمانا وكجالوي ننكر يوحى ليلي وبعلم وي كان كلاوي نقول دونا يوحى ليلي ناروها ذو جعلا سيا درتيدنا شيدان كيوا قاتي وراعي مركد دمبي ناغا يوحى سايوكوا شيء هذه سألوكين الماضي وراء عند جارهان أنبياء إلهي سبحانه وتعالى رسول في دمر بدل إلهي سيد سبحانه وتعالى سيد النبي سليمان وكله رسول صلى الله عليه وسلم نور شيء الله طلعت حاس مركني كني دمر بدل مجعله وحاس في النقوها قولك فعل بن بعورة وحنا على وقت النبي موسى عليه السلام ولا بيجوا صدح كون الله بقول صنكور نبي موسى عليه السلام نبي عيسى وحكوري كل الله بقول صنو maaragtay rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam 570 kadib sano ayuu dhashay nabi ciise kolka nabi ciise waqtigiisa 2000 sano laga jooga rasuulkeena 500 waxa dhiman baa laga jooga isku darka guud ninka waxa laga jooga waqtigaas 3200 sano ka hor asayeeshay umar bacayr waxa lagu sheegaa in noolaa taariikhda milaadiga markay ahayd 1300 oo ah inta badan taariikhda isku raacay inay maaragtay dadka Soomaaliyeed gudaha ku jira xoolo dhaqatada ay diin islaamka qaateen ogaada hadda xeebaha Soomaalida sida magaalada maaragtay Saylac oo kale waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam intuu haajirin ka hor oo uusan Maka u haajirin ayay muslim ahaayeen waana sababta keentay masaajidka la yiraahdo al-masjid maaragtay qiblatayn ee ku yaal magaalada Saylac alada qimrale taasoo kale ah markii nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahay ku amray inuu qiblada u wareejiyo baytul quds oo Maka ka wareejiyo kadibna Maka lagu soo celiyo marka masaajidkay saasoo kale weeye marka magaaladani iyo xeebaha Soomaaliyeed dadka muslimka ee Soomaalidu waxay diin islaamka qaateen waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam asayeeshay xoolo dhaqatadii Soomaalida gudaha ku jirtay waxay diin islaamka qaateen qarniga 19aad waana waqtigii baa la yiri uu soo baxay wadaadkii loo oran jiray Yusuf al-Konayn kolka تفسيره فربضان السيدة مجاهد وكلاء ابن كثير وعنو كتب تاعي كتبتي سايستانو أردد ابن كثير بارواي ابن كثير فكرة دي وكودو تفسير كي هوري مارك تي أصحابتي سيدة عبد الله بن عباس وكلاء ونبي بوها أصحابي ونوتر دارن تفسير كي سينا نقيمين وعن بخاعنو قولك ابن كثير وحوش شيء أصحاب تابعين كلاء ninka loo jiray Bacla ibn Bucuura asalkiisii akhyaaray uu ka yimid meesha la yiraahdo Yaman
يمن بوكي متبالي الدوغان معناها يسوق ريب إسرائيل بوها ريب إسرائيل بوها سو يمن كتلين اللي يقان وايو ريب إسرائيل بريغاس فرعون باقوميسين جري مصامة مساعدة باقوميسين جري وحالي يمن بوكي متبالي دربغا وحان هلي عدين أهين سو دوالي دولكا هسي الشيء ninka la oran jiray boqor bacay sheekadiisa waan geli doonaa maadaama uu la yiri wuxuu noolaa waqtigii 1300 markii taariikhdu ahay kana uu noolaa 3200 ayna u dhaxayso saan jeclahay 1500 oo 2000 ayna u dhaxayso taariikha 2500 oo sano ka u dhaxaysa labadooda marka taas aynu filaaqeynaa labada nin maxay wadaageen Baclam ibn Bacuura wuxuu ahaa reer Israa'iil buu ahaa waa uu gaaloobay isla markaana waxa uu jeclaa uu ku fidnoobay dumarka Soomaalitan macnaha halkaas waxa weeye waa farista kuli weeye farista kuli macnaha waan baaraynaa cadayntii koobaad baan durbaba helay cadayntii koobaad baan helay cadayntaas oo ah in Curbacayr oo liiga boqol yuhuudi buu ahaa iyo Baclam ibn Bacuura inay labada hore yuhuud ahaayeen ama reer Israa'iil ugu yaraan ahaayeen isla markaana ay dumarka ku fidnoobeen waayo sheekadeena waxa la noo sheegay Curbacayr dadkii Soomaalida ahaa ee dhulka deganaa ayaa uu caadadan hadda Soomaalida ismaashay toddoba ku jirowga la yiraahdo waxa la yiri gabadhii la soo guursadaba isaga ayaa toddobada bari ee toddobada maalin ugu horeeyay haysan jiray Soomaalitan macnaha de sheekada de dhaqankeeda caadadan hadda haysana weeye inkastoo dhaqanan islaami ahaan weeye cidna kulaba taliyaan anigu kolka macnaha ninkani marka uu dumar jeclaa ninkana uu dumar jeclaa ilaa hadda calaamad koobaad way wadaagaan cadaynta koobaad asiga shay taariikhda kala duwan marka balaga taariikhda baadna marka maadaama ninkani uu yaqaanay sira waaweyn oo kamid ah siraha waaweyn ee Ilaahay baray aayado waaweyn uu yaqaanay ma laga yaabaa in waqtigiisa la kordhiyay oo aan markiiba la dilin wax ka arrin cadayna marka asxaabi la oran jiray Tamiim al-Dari ay oo carabta Masiixiinta ahaa ayaa waqtigii Nabiga sallallahu alayhi wasallam soo muslimay rasuulka u yimid kadibna Tamiim al-Dari Nabigu wuxuu ugu sheegay sallallahu alayhi wasallam in maalmada kamid ah iyagoo maraya badda Carabiya oo badda Casiya badda Cumaan baan ku qiyaasay iyagoo maraya ay doontii dabayl ka dhacday kadibna dabayshii ay fil waday kadibna ay meel jasiirada oo bad weynta dhexdeeda ay geysay kadibna meel monasteri ama meel building dhismo diin oo kala intuu galay uu ninkan dajaal marba ka sheekayn doona dajaal ku soo arkay kadib rasuulku sallallahu alayhi wasallam arrintaa waa uu rumeeyay asxaabtiina waa u sheegay marka xadiiskaasi waa saxiix nabiguna waa uu sheegay sallallahu alayhi wasallam ninkan dajaal soo arkay kolka waxaan ugu jeedaa macnaha dajaal ilaa maalinka nabiga sallallahu alayhi wasallam soo baxay ilaa hadda uu nool yahay Soomaalitan haduuna hore nooleenba kolka dajaal maadaama hadda nabiga lagu joogo ku dhawaad 1500 sano ka hor sallallahu alayhi wasallam waqtigiisa rasuulka laga joogo dajaal ugu yaraan 1500 sano jira kolka ninkani maadaama uu ayada waaweyn yaqaanay lana fidneeyay ilaahayna noo sheegay inuu shaydaan raacay aakhirada cadaab u tagayaa maadaama uu ayadu weyn yaqaanay sida dajaal oo kalena ma laga yaabaa in la fidneeyay oo waqti dheer la siiyay kadibna 2500 sano maaragtay inta u dhaxaysa inuu jiray oo isla ninkan yahay ma naqaan laakiin waxaan ilaa hadda hubnaa